waxa laga yaabaa inaad adigu ka mid tahay dadka la dhiban laabjeexa bisha barakeysan ee Ramadaan. Si aad xal uga heshid fadlan dhammayso muuqaalka. Sidee ugu hortagi kartaa laabjeexa, laab ololka ama laab dilaaca? Sidee ugu hortagi kartaa intaan ku guda jirno bisha barakeysan ee Ramadaan? Ramadaanka fadligiisa waxaan ka codsanayaa in aad muuqaalka share gareyso oo aad gaarsiiso walaalaha muslimiinta saayimiinta si ugu faa'iideystaan. Sidoo kale page-ka follow dhig si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo geliyo. Sidoo kale xagga hoose ka wac qaar ka mid ah asxaabta aad la jeceshahay in muuqaalka ay ka faa'iideystaan. muuqaalkaana laag badan si uu dad badan u gaaro. mahadsan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Ramadaan kariim dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba oo dunida ka joogta. weli waxaan ku guda jirnaa bisha barakeysan ee Ramadaan. Ilaahay ha naga dhigo kuwa camaashooda laga aqbalo oo Ramadaanka loogu dambi dhaafo. ku soo dhawaada barnaamijka cuntada iyo caafimaadka oo aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. waa maxay laabjeexa? laabjeexa, laab dilaaca, laab ololka qofba si ayuu u garanaa. waa dib u soo noqodka dhaacamada ama aashtada caloosha. tubada hunguriga qaada iyo caloosha waxa u dhaxeeyo isfintar yar oo qofka markuu cuntada u liqaayo ama cuntada ay gudubto oo xidhma. haddii muruqaas yar oo jilco waxa dhacda in aashitada caloosha ay dib ugu soo laabato tubada hunguriga qaada oo qofka uu dareemo laabjeex ama xanuun halkan ah. su-aasha kale oo isweydiinta mudan waxay tahay maxaa ku garan kartaa in aad leedahay ama aad qabto laabjeex? calaamadaha lagu garto laabjeexa ama calaamadaha aad isku arkaysid haddii aad leedahay laabjeex waxay inta badan yimaadaan qofka markuu cuntada cuni kadib. waxaan ugu horeeyo calaamadaha ugu horeeya oo aad ku garan kartid in laabjeexa aad qabtid waxaa ka mid ah laab xanuun, laab olol ama inta in ay ku gubato. sidoo kale waxaa lagu gartaa ama calaamada labaad oo aad ku garan kartid laabjeexa waxa weeye daac qurun, laqanyo, xanuun cuntada kadib, hingo iyo qofku ay ku adkaato in cuntadii oo laqo. haddii aad leedahay ama aad qabtid laabjeex calaamadahaas ayaad isku arki kartaa. su-aasha kale oo isweydiinta mudan waxay tahay sidee ugu hortagi kartaa laabjeexa, laab ololka ama laab dilaaca? sidee ugu hortagi kartaa intaan ku guda jirno bisha barakeysan ee Ramadaan? qodobka ugu horeeyo waa in aad ka fogaataa cunista ama inaad ku suxuurato ama aad ku afurto cuntooyinka kiciya laabjeexa. waxaa wanaagsan inaad cuntod ama aad qaadatid ama aad ku afurtid cuntooyinka u wanaagsan oo aan kicinaynin laabjeexa. haddii aan ku hormaro cuntooyinka u daran ama kiciyo laabjeexa oo ay tahay inaad ka fogaatid waxa ugu horeeyo hilibka gaduudan ama hilibka cas sida lo'da, geela. maxaa yeelay waxa ku badan borotiin badan ayaa ku badan. si marka loo burburiyo aad ayay u adeegin. si loo burburiyo caloosha waxay soo deynaysaa aashito ama dheecaano badan. haddii caloosha ay dheecaamo badan soo saartay waxaad dareemaysaa laabjeexa. hilibka beddelkiisa waxaa loo baahan yahay inaad cuntid hilibka cad sida kalluunka iyo digaaga. sidoo kale digaaga xagga sare waxaa kaga dahaaran deer yar oo dufan badan. intaadan karin ka hor waxaa loo baahan yahay in aad ka qaado. sidoo kale waxaa loo baahan yahay inaad aqoonsatid ama aad garatid oo aad kala saari kartid cuntooyinka iyo cabitaanada kugu kicin kara laabjeexa si aad ugu fogaatid. waxaa kaloo loo baahan yahay inaad ka fogaatid cunooyinka ay ku badan yihiin dufunta iyo milixda. waxaa kaloo loo baahan yahay iyana inaad ka fogaato si aad ugu hortagtid laabjeexa cunooyinka ay ku badan yihiin xabaajka iyo waxyaabaha kale lagu carfiyo cuntada. maxaa yeelay waxay aad u badiyaan aashitada caloosha soo deyso. haddii aashitadaas ay kugu badata laabjeexa ayaa kugu ziyaaday. sidoo kale haddii aad ka cabanaysid laabjeex waxaa loo baahan yahay in aad ka fogaato gebi ahaanba basbaaska. maxaa yeelay laabjeexa ayay kuugu sii kicinaya. waxaa kaloo loo baahan yahay in aad ka fogaatid qaadashada xaddi badan oo cuntaha. markaad afuraysid waxaa loo baahan yahay
cuntada inaad in yar aad u cuntid maxaa yeelay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam asigoo ka hadlaayo aadaabta cuntada wuxuu inoo sheegay thuluth lidacaamihi wa thuluth lisharaabihi wa thuluth nafs cuntooyinka waxaa loo baahan yahay calooshaada inaad u kala saarto qayb cabitaan qayb cuntaa iyo qayb habaha haddii xad dhaaf cuntid waxaa laga yaabaa cuntada inay kugu soo laabato waxaa kaloo loo baahan yahay in aad ka fogaatid cuntooyinka dufunta ah amaba la shiilay cuntada waxaa wanaagsan sida hilibka oo kale waxaa wanaagsan inaad biyo keliya ku karkariso ama aad dubto ovenka aad geliso looma baahno inaad saliid ama dufun ama waxyaabo kale aad ku shiisid sidoo kale waa in aad ka fogaataa cabitaanada ay ku badan yihiin citric acid sida limont iyo waxyaabaha kale cabitaanada kale is leedahay gaasku way kugu kicin karaan sida kuwa aashitada leh waa inaad ka fogaataa waxaa kaloo loo baahan yahay in aad ka fogaato soo jeedka badan ama dhafarka badan waxay kicin karaan laabjeexa waxaa kaloo loo baahan yahay in aad ka fogaato muqaadiraadka sida shiishada iyo sigaarka waxay aada ugu daran laabjeexa oo waxay kicin karaan laabjeexa ama laab ololka hadba sidaa u taqaanid intaas kadib waxaan u gudugalayaa cuntooyinka u wanaagsan qofka leh laabjeexa ama laab ololka oo aanan kicinaynin laabjeexa waxaan ku horumarayaa qodobka koowaad waa in aad ku afurta ama aad ku saxuurataa cunooyinka jilicsan oo dheefshiidka si fudud u burburin kara sida mishaarida koostada iyo guud ahaan cuntooyinkaas leedahay way jilcayiin nafaqo badanna waad ka helaysaa cuntooyinkaas looma baahno in ay ku badan yihiin milixda waxyaabaha lagu carfiyey xabaajku kale iyo dufunta sidoo kale waa in aad joojisaa inaad hal mar cuntid cuntada ama cunto cunis inaad hal mar cuntid waxaa loo baahan yahay inaad intaad hal mar aad afur lahayd waxaa loo baahan yahay inaad 3 jeer oo kale aad kala cuntid markaad waa nafisaysaa oo laabjeexa ma kugu kacay sidoo kale waa in aad ku saxuurtaa cunooyinka qalafoofta ama dalagga sida sareenka ama qamadiga maxaa yeelay fiber badan ayay leeyihiin calooshana way socodsiinaysaa qofkana maalintii baahi badan ma dareemayo oo wax badan gaajada waa u adkaysan kartaa haddii aad qaadatid cuntooyinkaas waana caafimaad sidoo kale waa in aad cuntaa fruitka sida babaayga maxaa yeelay fruitka waxaa laga helaa noocyada kala duwan ee fitamiinada oo jirkaaga u baahan yahay sida vitamin A vitamin C iyo noocyada kale ee fitamiinada sidoo kale biyo badanna waad ka helaysaa si gaar ah babaayga wuxuu aad ugu wanaagsan yahay dheefshiidka mar walba calooshaada ay socoto caafimaadna waa ku soomaysaa waxaa kaloo loo baahan yahay in aad ka fogaatid inaad horaad ka seexatid markaad cuntada cuntid kadib markaas waxaa laga yaabaa in cuntadii ay kugu soo guddoonto oo aad laabjeex aad dareentid waxaa loo baahan yahay 3 ama 4 saac ka hor intaa seexanin cuntada inaad iska cuntid waxaa kaloo loo baahan yahay in aad cuntid cuntooyin isku dheelitiran oo ay ku jiraan guud ahaan nafaqada jirkaaga u baahan yahay sida proteinka carbohydrate noocyada kala duwan ee fitamiinada looma baahna kaliya inaad cuntid cuntooyinka cad ama white foodska sida bariiska baastada iyo burka looma baahna cuntada cunaysid waa inay ahaataa kuwa isku dheelitiran oo ay ku jiraan proteinka sida digaaga ama kalluunka oo kale in yaroo bariis ah iyo qudaarta cagaaran sida koostadoo kale iyo fruitka sidoo kale waa inaad biyo badan cabtaa afurka kadib ugu yaraan 2 ilaa 3 litir biyaa loo baahan yahay inaad cabtid waxaa kaloo loo baahan yahay in aad joojisid ama aad ka fogaatid dhafarka ama soo jeedka badan maxaa yeelay waxay ziyaadiyaan ama kugu ziyaadin karaan laabjeexa samee qodobada markaad jiif isku diyaarinayso waa in aad diyaarsataa barkin dheer si ay kuu caawiso oo ay cuntada kuugu soo laaban sidoo kale looma baahno in aad cuntada markaad cuntid aad hore ka soo seexatid waxaa loo baahan yahay inaad xoogaha aad ku soo nasato ama aad ku socsocoto loona baahno inaad jimicsi badan aad ku samayso waxaa laga yaabaa in cuntadii ay kugu soo roonta ama dib ay kugu soo laaban sidoo kale ha xiran dharka kugu dhegan gaar ahaan caloosha waxay cadaadis saarayaan caloosha oo waxaa laga yaabaa si fudud inay cuntadii ay kugu soo laabato fadlan hayloobin inaad muuqaalka sheergarayso oo aad gaarsiiso walaalaha muslimiinta si ay ugu faa'iidaystaan sidoo kale xagga hoose kaba qaar ka mid ah asxaabta
si ay ugu faa'iidaystaan muuqaalka. Page-kana follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo gelin. intaasina kusoo gabagabeynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala